waxaan idinku yeeray waxyaabo aan la yaabaaban saaka arko way anigu nin weyn baan ahayo aad u ay araga saaka waxaan qabtay magaalada waqooyigeeda halka magaalada yar sukadeeda ayaan mid u raacay dabeedna waxaan arkay baxal imanka ismaan lahayn xawayaan baa xoolii madhe geeri madhay dameeri madhe wax walba nadhe baxal aan maalintiina daaqin oo habeenkii daaqa oo saddex ciyaal yeeriyanayaan baan waa bakayle wuxuu ilaahay de wuxuu nooleynaya iyaga noolaada laakiin waxaan la yaabay bahalkan horta marka uu horeyso waxa uu cunaayo habeenkiiba wax cunaayo wax daaqaaye halka uu ku noolaa taas la yaabay igu noqotay meesha lagu eryeynaya waa meel gasiirada hogal yar baa maalin dhaweed doosha yar bay leeday laakiin wax dhaabsiisan kuma arag waxaan xusuustay maalin waqtiga markaan arkay yar-yarkii baan eego waa niman aad u itaal daran waxaan ku dhaadir bahalkan abaarta ka soo dogay inuu nooliyaba kanoo kale maan moodayna maxaa wariyeenaysaa adeer intaanu ka dayna waanu qalanaynaa bay igu yidhaahdo waxaan xusuustay 61kii maydaan jirin idinku ayaa weynagii koonfur raacnay maalintaa jawaanka weyna sonkorta wuxuu ahaa 100 shilin dabeed dawladdii markaa jirtay aadan cabdulla xuseen madaxweynaha ahaa ayaa waxay yiraahdeen inta waqooyi koonfur laga siisto ama xamar laga siisto raashinka ayaa waqooyina laga siisanaya qiimihii markaa inagu $100 baynu 100 shilin baynu wax ku iibsan jiray jawaanka weyna bariiska sonkorta wax waliba 300 shilin baynu ku tagtay dadki magaalooyinka uu ka baxay burco iyo hargeysa dibadda looga baxay markii looga baxay baa waxa loo baxay halka miigaas oo waxa loo baxay miiga muddo la fadhiyay waxba kumay kordhin dawladdiina waxba kamay bedelin markaa sanadkii bakaala qalad baa loo bixiyay waxaan magaciisa ayuu noqday waxa ii hor yimid sanadka sida sixir bararku ahaa iyo magacii loo bixiyay iyo maanta halkaynu marayna sixir bararka aawadi ayaa aad ila cajaab noqotay waxaan ka xumahay waxaan haysan kamaro inamada iyo bahalka yar isma itaal dhaamin isaguna wuu liito markuu intan yar socdo baa meel buu galay iyaguna niman itaal lama yahay waxaan xusuustay sixir bararku maalinta halku joogay iyo dadku siday uga mudaharaadeen iyo dhibaatadii jirtay iyo maanta oo kiilogii sonkor ahaa 5 iyo badh inugu maraayo ayaan aad u xusuustay marka horta mucjisadaasaan saaka arko intan idinku yeedhay waa intaa waxaana amarkana ilaah baa leh abaar xumina weyna haysaa dalkuna in yar baa roobana badankiisu ma roobana marka u horeysa xukuumadda waxaan leeyahay maanta joogta xukuumaddu war hayso maaha dalka dhibaatada ka jirta gaajada ka jirta mashaakilka ka jira aniga kan iga soo horjeeday aqalka ee karbaashadu u dhisan yihiin wadadkii xooluhu ka soo madheen 4 ama 5 habeen markuu qadaaba la ogaada xaafadda wuxuu urursaa mashaakilkaynu maraynaa ka weeye labada golena way ka xun xukuumadda aad bay uga xun yihiin way madaxdoodu shir gudoon mare labada gole midna madaxdooda kaanaga noo madaxay shalay buu 15 cashu ka joogay dibad shalayna uu dhoofay intuu lacag badan baanka ka qaatay ayuu iska dhoofay shalayna waxaad muddo halkaa in dalxiistiro ummadii dalka lahaydna ay baqtiyayso midna waa kan kursiga doonayo isna inta badan buu golaama yimaado horta marka hore aad waxay nagu dhibaato xukuumad ma hayno golayaal ma hayno shacab wanaagsan oo wixii arkaan ka damqanayana ma hayno mashaakilkayna haystaa waa ka ilaahayna xumaanta wuu og yahay oo baadilkaynu isku sameynayno dulmigaynu isku sameynayno ilaahay wuu arkaado markii aynu isna waa nasanaysan roobkii baa idin daayna roobkana cadheeri buu igu noqdo aad buu cadheenoogay dhulka badankiisa hore ma abaar harkan mar aynu argeysa iyo meel la yiraahdo harashiikh inta u dhaxaysa oo dhowr maalmood loo kala socdo waa abaar dhulka badankiisa waa abaar waxaan ugu baaqayaa ama golayaal ha sheegtaan ama xukuumad ha sheegtaan ama madaxweynaha ku xigeen ha sheegtaan
ummadda xilkeeda in la iska wareejiyo oo ummadii maanta meel halista bay maraysaaye ninka maanta mas'uulka sheeganayo ilaahayna wuu kula xisaabtamaya ummadaaduna way ka dambaysaa in kastaana ummad taariikh leh wax qoraysa aanan arkaynin ummaduna way dambaysaa marun bay taariikhda qori iyada taariikhda wax qoraysa xilka ummadda in la iska wareejiyaa baa haboon dadkana gaajo u dhamaanaya maanta meel baa lagu cabo waynu ognahay shubanka iyo waxay jira waynu ognahay waxaan kaloo ka xumaa shalay xirsi waxa laga joojiyay caynaba isagoo dawooyin iyo biyo raashin jira dhakhtar ba uu yiri galo wax u gee waa laga hortaagay askar baa iska hortaagtay dadka meesha ku dhimanayana waa dadkoodii kan wax u sidayna waa dadkoodii nasiib darooyinka badan ee inagu dhacday bay ka mid tahay wax aad looga xumaadaa bay ka mid tahay bal ummadii shuban baa ku dhacay gaajo iyo waxa keenay taal daro nafaqa daro kii wax u sidayna waxa laga iska hortaagaya halkii dhakhtarka ahayd masiibooyinka inagu dhacday bay tahay waxaan kaga baxayaa qabyaaladda wax la yiraahdo wax alla wax heero ay leedahay ma jirto halka waxayna dhigay hadaynu reer waqooyinahay ama aynu jilibka dhexda ku jira caloosha ku jiranahay qabyaalad bayna dhigtay maalintii ninkii reer boorama uu dalka xukumayay dawlad baynahay maanta dawlad mani wax alla waxaynu ku abtirsano ma jirto cid lama saaxiibnihin xiriir cid aynu leenahay ma jirto inagii baa maanta koonfuri inay dhakada maalin dhow inaga qabsato dabadna cagta hoosteeda maalin dhow leena geliyaa baynu u dhowni xigtaa shirka waa la inaga reebo waxa ay doorashadii baa geli weydeen waa wax dhaba doorashadii inaga dib u dhignay labada golahayga dib u sii dhigay oo maalin walba kordhinayay dulmi badan baa ummadda laga galay maca halkay maraysana waa halka bahal yaro aan markiisaba hilib ilaahay u abuurin oo aan hilib lahayn in caruurteeni soo kacaysa ay siyaadan cunto ka dhayo eryadaan aad bay calooshu iga xanuuntay tan idinku yeerayna wata wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh